intuu qayrkay dhaqmay intay laba guri dhisay intuu hadda gaaf dhacay waxaan dib isugu dhigay dhul sugay samir lahay jacayl dhoofaan sugay qisa jacayl oo la magac baxday dhoof iyo jacayl waxay ahayd toddobadii habeenimo anigoo socdaal caafimaad ku tegay magaalada Addis Ababa halkaas oo aan si kadis ah ula kulmay saaxiibkay deeq oo ahaa wiil dhalinyaro ahaa oo farxaana laguna asteeyo furfurnaan iyo wajeelaac hase yeeshee waxaa deeq qaniisaday oo bahday iyo barkii kala baxay galgacal fac weyn oo ku fogaaday dhammaan feedhaha iyo waxyaha jidhkoo idil taasna waxaa sababay jacayl dhiiranaan oo si kal iyo laaba looga qaabilay kalsooni badan oo niyad sami ku dheehan tahay waxaana caashaqa ku abuurmay oo sida midhaha geedaha ku abqaalay kuna beeray gabadh la yidhaahdo Ifraax gabadhaasi oo sida waqaalka uga helaacday wadnihiisa bidix horaana loo yiri jacaylku daacad iyo hadduu helo daryeel ma duugoobo ogow Ifraax xilligaa waxay deeq u muujisay dabacsanaan iyo dareen iyo xushmad weyn dabadeed deeq waxa uu muujiyay gabadha dareen naxariis taasoo labadaba fagaaraha akhyaarta looga yaqaanay mataanihii jacaylka waxaana dhex yeelay miisaan jacayl oo qarsoon oo xaq sooran labada qof ee isku indho kuulan jiray waxaanay ahaayeen dhaaya iyo aragood doolo iyo qosolkood laf iyo dhuuxeed waayo waxay ahaayeen ul iyo diirkeed deeq waxa uu jacaylku ku kalifay inuu nafsadiisa u hibeeyo Ifraax una huramaankiisa iyo maskaxdiisa taadhigeedana Ifraax ayaan dab yar shidayn oo keentay heer ilaa cuntada ay cunayaan ka dhigtaan isku mid oo si kaftan ah galgacayl ku dheehan yahay isugu su'aalaan maanta ama caawa calooshin waa mid sidaa darteed aan anfac isku mid ah qodono ee maxaad cunaysaa caawo weliba xilliyada ay waqti kulan isku helaan waxay ahaayeen laba qof oo labiska ama huga oo qura ku kala duwan dhar ahaan balse muuqa iyo midabka iskaga mid ahaa jacaylka geexday ee heerka halista ah gaadhay ee haddii ayna is arag saacad midba dhibta uu dareemo ayaa waa tii horey loo yiri dabar iyo hoggaan iyo dani waa seete iyadoo xaalka halkaa marayo ayaa waxaa dhoof u soo baxay Ifraax nasiibka mid u dhowna waxaa helay deeq oo waxbarasho jaamacadeed u helay Addis Ababa Ifraax oo u socota Denmark iyo deeq oo jaamacad u tegay Addis Ababa ayaa labaduba safarkii gaadhi ugu boqolay meel labaduba dantoodu ku xidhnayd waxay noqdeen laba nafood oo isku mid ah oo isku milmay deymada indhaha isku doogsaday sababtoo ah daayihii isjecelba dhab ahaan israadsho dhayal u kala jeedsani la soco qaybta labaad intuu qayrkay dhaqmay intay laba guri dhisay intuu hadda gaaf dhacay waxaan dib